kulankan ayaa ahaa mid u dhaxeeyay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle wuxuuna ku saabsanaa kulanka nidaamka doorasho iyo sida suuragal ku noqon karto in dalka Soomaaliya ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah bulshada ka soo qayb gashay kulanka ayaa xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya waxay weydiiyeen su'aalo kuwaas oo ku qotoma suuragalnimada in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah dhinaca kale Marwo Khadiija Cusable Cali oo ka mid ah xubnaha sare ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in la gaaro doorasho qof iyo cod ah inay faa'iido badan ugu jirto bulshada Soomaaliyeed ilaa hadda waxaan ku soconay xulitaan ku soconay maanta waxaan rabnaa inaan u gudubno doorasho oo xulinta ka gudubno waa ku soo meel marnay waqtigay lahayd waqtigeedii waa dhamaaday maanta wixii ka dambeeya waxaan u baahannahay dadaan dooranno lana xisaabtanno hadday shaqada loo dirsaday ay fulin waayaanna aan dhahna raalli ahaada shaqada waa fulin weyseen laakiin marka hore waa inaad aad ku leedahay cod oo aad ku doorato u malaymaayo inta meesha fadhiday in badan oo naga maqan inay jaga raadinayso laakiin waxay raadinayaan waxay tahay xuquuqdaas asaasiga ah inay nabad ku noolaadaan inay caafimaad helaan inay waxbarasho helaan inay horumar helaan inay waxay u baahan yihiin oo service ay ka dawlad iyo dad ay ka heli karaan ay xafiisyada u fadhiyaan xulitaankeedii laakiin xaqaas idinkaa leedisii dadka isma soo xuli karaan qofka mas-uulka iyo qofka dariiqada fadhido waxay ku kala duwan yihiin sharciga iyo xulitaanka doorashadaas lagu sameeyay qofkaas la soo doortay ayuu mas'uuliyad ku qaaday mas'uuliyadaasna mid aad idinka u dhiibateen waaye qof dhigi karta inta meel soo istaagto way dhamaato waqtiga la dhihi jiray anaa meeshaan xureystay iyo anaa xukumo annaga hadda ujeedada aan u nimid waxay tahay guddiga doorashooyinka safarra aan ku maraynay gobollada iyo isteedyada dhan oo ku saabsan dadka Soomaaliyeed inaan warbixin ka siino doorashadan meesha ay marayso u diyaar garowgeeda ayagana aan ra'yigooda dhageysano maxaa carqalado ku noqon karo sidee maaragtay uga hortagi karnaa carqaladahaas maanta su'aasha ma taagno doorasho ma dhici kartaa mase ma dhici karto waxay taagan tahay doorasho ma rabnaa annaka mase ma rabno guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya ee maatankooda Hirshabelle ayaa imaanaya xilli dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay sharciga doorashooyinka dalka Ibrahim Aynur TV Universal Jowhar